brother bas Soomaali way guuleysanay wayna guuleysatay wayna guuleysan doontaa Sabrina walaal. bas brother bas brother Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga Makaraan Yare. Ninkii idlaada waa Makaraan, waa walaalkiin, waa miskiinkiina. Fadlan haddii aad YouTube-kan ku cusubto oo markii kuugu horreysay aad aragtid, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ka aan la dhaafin oo aad dhag iskaga siisid. Like-tana aan kiiloogin. Comment-tigana waxii adi ra'yigaaga ah oo aad ku aragtid noogu soo xariiq. Waad mahadsantihiin. Maanta waxaan ii soo duubay muuqaal hore oo aan uga hadlayay xulkan qaranka Soomaaliya oo maanta guul weyn gaaray. Horta waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad Soomaaliya meel walba ay joogto caawa waxaan idin leeyahay hambalyo. Waxaan idiga codsanayaa comment-ka inaad kasoo wada qortiin hambalyo. Waayo Soomaali meel ay nolosheeda ay gaarin ayaan gaarnay. Maya horta finaal waan gaarnay laakiin finaalada gaari jirnay finaalkana wax ka xamaasad badnaa ma lahayn. Maanta ciyaarta markaan dhamaystay banaanka u soo baxay sawaxanka iyo dadka oo shacabka oo banaanka dabaaldegayo ayaan dhegeysan waayay qayliyadan ka joogi waayay. Waxan waa farxad ma ahan wax kale. Haddii aan soo baxa banaanka imaadaba ciroole iyo maamo iyo waayeel iyo dhalinyaro iyo anuu saqiir ah wax u kala haray ma jirin. Waa la wada dabaaldegayay, waa la wada boodboodayay. qof walba waxa waaye Soomaali ha noolaato asgari ha dhihin. Loda Soomaali ha noolaato dhees. Ariga loda Soomaali ha noolaato dhees. Kii ganacsi jooga Soomaali ha noolaato dhees. Maanta looma kala harin Soomaaliya. Soomaaliyana waxa waaye waa wadan maasha Allah alxamdulillaah ilaahay Soomaalida noo deeyo. Ana xataa wallahi isma dhihin maanta Soomaali soo suudan ka badanayso. bas brother bas Soomaali way guuleysatay bas brother bas bas brother bas Soomaali way guuleysanay wayna guuleysatay wayna guuleysan doontaa Sabrina walaal. bas brother bas brother Soomaali way guuleysatay saa no matter Walaa dareenkayga oo kacay. Marka dambe hoos soo dawooday shacabkii aan soo dhex galay. Wallahi waan yaab wallahi billahi taala waxa ka dhacayo. Aniga xitaa teleefankii iyo kaamira wax ku duubay xitaa meel kale aan aqoonsan. Mar dambe saaxiibkay ila socda ay qaadeen dareenkii iyo shucuurtii ay ka badatay. Dad saaxiibana ay wadeen ay kaamira ka qaadeen. Ninkan muuqaalka daayay markaan soo duubaynay saaxiibkay Axmed wacan oo ila joogay. Haddana wuu ila joogaa. ninka oo ii soo qaaday kaamiradi waxba ii soo qaaday tarbiyaha ii soo qaaday ninkan baan ani soo dadkii iska dhex galay inaa wax duuba waa iloo dadka dhex galay asaaba dadka ii wareysta oo dareenkooda iyo say u falceliyeen iyo guusha taariikh weyn ay soo gaareen iyo hadafka ay soo Soomaaliya maanta imaatay meeshii higsanaysa iyo meeshii joogtay ninkii ii duubay oo waqti iyo juhdi geliyay waa ninkan ani maanta ninkan soo celin waxa kaamireedi iyo wixii waxa waa iska qaadan lahaa ma fahmino soo Cabdi Wacan asxaabtii salaan waa markii ugu horeysay ama waa YouTube-ka ka muuqatid waa markii labaad soo dhawow saaxiibkii Makaraan waa mahadsan tahay saaxiibkii Makaraan horta ugu horeyn Soomaali way guuleysanaysaa wayna guuleysatay wayna guuleysan doontaa Soomaali guul waa markii ugu horeysay soo booqdo saaxiibkii YouTube-kiisa haddii ay tahay markii ugu horeysay waxaan ka codsanaa subscribe inaad soo raadid waad ku mahadsan tahay ciyaarta galabta aniga waan daawanayay waxaan ka daawanayay meel ay dad badan markaas joogeen waan daawan kaligay laakiin sababtan u daawanin waxay ahayd waxay ka xiisay xamaasad badan tahay markaa kaligaa daawanaysid markaa dad aad la daawanaysid markaa dad la daawanaysid ciyaartaas way kugu soconaysaa macnaha laakiin haddii kaligaa aad tahay waxaa laga yaabaa inaan qiimeyn gooni sameyn hurdiin ku qabataa laga yaabaa si kale xiisad gaara mala macnaha marka waxaan tagay meel ay joogaan ugu yaraan 100 ruux ay joogaan dhexda ka galay ciyaarta meeshan ku daawanaya xiisaheeda iyo xamaasaheeda iyo ma laga sheekeyn karo waxaadna moodaa dhammaan wallahi nabeen ku sheegin 100 ruux meeshii joogtay dhammaan waxay dad isku wada qalbi ah maasha Allah wallahi mar hada maanta laamigan taagnay gaari oo herrukus oo ciidan saaran yihiin inta waqti dhagtay anigu waxa saarnaa marshibiyoodka laamiga laba laami ka dhaxlaan saarnaa marshibiyoodka agtooda xabad xoogsiina bam anigu xabadaas iyo waxaas ma u soo jeedo waxa waaye xamaasad iyo dareenkii iyo Soomaalinimada iyo
sina ilaahay Soomaali iga dhaaf ilaahay wixii noqon waxaan noqonaba inaan wax aan ka dhex baxno waan ka dhex baxno noqonaba ciirka u qabnay waxaa meen xataa goolasha cun waxaa rabaa inaan aniga aab iska dhalino aan iska wadno ilaa iyo 100 gool يا inta Soomaali gool lagu dhashay inaan ka magno ها saddex gool dabcan wax ka badan ay Soomaalida u qalantay markaad fiirisid qaabka ay u ciyaarayaan isku dhiibkooda quruxda badan leh goolasha ay sigayeen waxay ahaayeen innaba wax la sheekeyn kara ma ahayn waxaa rabnay Soomaaliya inay 5 gool 6 gool 7 gool ilaa 8 gool ay ku badiyaan wayna dhici kartaa inay ku badin kareen markaad fiiriso Suudaan ciyaarta ay dheelaysay qaabka ay u ciyaarayaan waa dad wallahi totally official ah oo ciyaarba u diyaarsanayn markaad fiirisid Suudaanka horta wixii qoran amees ka dhacay waxaan qornayna ma dhici lahayn Soomaali inay horta ay dan leedahay adduun naadiga ugu liito haddii uu qof mise adoo waqtiga wado cid bil aadan oo celi karto ma jirto aan Soomaali waxaan ka shakiyay kulankii ugu horeeyay ee Ethiopia hal Europe arma shaqal ariga maqli jiray maxaa dhacaysnaani Soomaaliya badis kulankii labaad goolay kor martay waa laakiin waa loo saaray no problem kulan kale waa kana gool loo maray waa keenay reewaro ku badanay Soomaaliya oo noocaas waligeey ma arkin baan cajiib laakiin mar walbo Soomaali waa Soomaali waa guulaysanaysa insha Allah maanta waxay gaartay guul taariikhi gaartay waxaan idin leenahay qof walba oo Soomaali ah commentiga ku soo qoro hambalyo aan isku hambalyayno ninkan wallahi maanta markaan muuqaal soo duubaynay waqtigan muuqaalka duubayno kale aniga asiga wallahi 50 ciyaartay isma dhinac waayo Soomaaliya maanta guulaysanayso waa isku qornaa dhacaa laakiin ani isma dheheenin laakiin insha Allah wadankiina waa wadan qani ah waa wadan wanaagsan waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo guul joogta insha Allah Soomaaliya Soomaaliya soo dhawaada asxaabta cusub ha noolaato Soomaaliya ha noolaato subscribe dhaha YouTube-ka saaxiibkay makaraan haddii hata markii kuuriis soo biirtan waxaan markale ka codsanaynaa subscribe dhahdid muuqaalkan like saar saxaabada nagu gaaro soo dhawaada insha Allah